السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتين meel kastoo caalamkaad ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan waxaan idin rajeynayaa khayr iyo barwaaqo qalbigaaga sidee looga jaraa waxa noloshaada u daran xarunta jirkan laga maamulo ficiladan ina ka dhacaya meesha ay ka soo fulaan waa qalbiga haddii qof uu yiraahdo isagoo xumaan sameynaya waa qalbi wanaagsanahay way adag tahay inaan qofkaa ka rumaysto sababtuna waxa weeyaan qalbigaagu wuxuusan rabin xubnahaagu ma sameeyaan haddaba qalbigaaga marka aad aragto in wax dhibaato ku ahi ay jiraan murugo badan kugu haya ciriir badan aad ka dareemayso haddana xubnahaagu ay yihiin waxa samaynaya naftaadana aad ka goyn la'dahay haddii si kasta aad u tiraado mushkilad bay ugu tahay waa sax inay mushkilad tahay waa loo jeedaa adigu laftigaaga waa dareemaysaa xanuunka laakiin waxaan aaminsanahay oo arkaa oo xaqiiqadu tahay boqolkiiba boqol shayga xanuunka uu kugu hayo ma gaarin heer uu kaa jaro waxaanaad samaynayso waxay doontaa noqoto waxaa dhici karta inay qof tahay waxaa dhici karta inay dabeecad tahay waxyaaba badanoo kalena way dhici kartaa inay yihiin haddii shaygu xanuunkiisu uu heer gaaro hadda wax fog bay iska daa telefoonkan aad hadda iga daawanayso hadduu kaa jabo waa laga yaabaa hadda inaad leedahay lacag ma haysto ma shaqeeyo waxba ima soo galaan laakiin telefoonkan ilaahay ma keeno ilaahay raxmaanka uguma rido laakiin telefoonka aad hadda iga daawanaysaa hadduu kaa jabo dhowr beri ka bacdi telefoonkaaga adoo soo samaystay baa lagu arkayaa lacagta xaggee ka keentay qofku baahida hadba uu qabo xanuunkeedu inta ay la eg tahay buu nolosha dhaqaaqaa isbeddelkana la yimaadaa isbeddelka waxyaabaha keena qasabkana kaga dhiga qofku in wax xaqiiqo ah oo noloshiisa uu ka dhex arko inuu noqdo waa arrinta keentayba isbeddelkan ee ku dhalisay xanuunkay ku haysaa hadba inta uu leegyahay hadba xanuunkaasu inta uu joogo baa adiga socodkaaga dhaqaaqaaga kartidaada dadaalkaaguna leegyahay saacadaadan kala jeclayn habeen iyo maalinkay tahay baan macno kuugu fadhiyin waxaa kuu muuqata oo keliya sidii xanuunkan aad qalbigaaga uga dhayi lahayd ood uga bogsan lahayd haddaba waxaan kula wadaagi doonaa caawa dhowr waxyaabood dhowrkan waxyaabood waxaan kuu hubaa sida ay tahay haddaad ula timaado naftaadana aad dadaal ku bixiso waayo naftan ilaahay uu ina geliyey inagu jirta xumaan ma ahane wax kale iyadu ma jeclaa sida caadiga naftu xumaanta way jeceshahay waa laga yaabaa inaad hadda tiraahdo xumaanta waa nabcahay laakiin maya qof kastoo ina ka mida inaynu waxaynu doonno adduunka samayno nafaheenu way iska jecel yihiin mid baa jirta gabdhaha hadda aad taqaan rag iyo dumarkaa tahayba waxaad weydiisaa haddii waxyaabaha ilaahay agtiisa dembiga ka ah mid ka mida haddii lagu fasixi lahaa maxaad jeclaan lahayd in aad ilaahay ka codsato weydii waxaan kuu hubaa gabdhuhu siday u badan yihiin gabdhuhu waa siday u badan yihiin mid waa laga yaabaa wax kala sheegatay inay jirto laakiin gabdhuhu siday u badan yihiin waxay ku oran inaan xijaabka iska dhigo inaan surweel xirto inaan quruxda timahayga bannaanka soo dhigo soo run maaha taas xaqiiqo jirta haddaba dhowrkan waxyaabood uma malaynaya inay haddaad isbeddel si dhaba u rabto noloshaada inaad uga dhex aragto ay adag yihiin laakiin haddii aad tahay dadka caajiska badan wax dib u dhigga badan berri baan samayn doonaa hadda way ugu adag tahay waqti uma hayo kuma shaqayn doonto haddaad xataa tahay dadka marmar dhifa sameeya kuma shaqayn doonto haddaad sarabto si dhaba isbeddel inuu u yimaado isbeddelkana badi waxyaabaha qofka ka hor istaaga waxaa ka mid ah natiijadii uusan markaa arkayn laakiin ogow beeralaydu beerta markay beeraan hore midhaha kama gurtaan intaasoo bilood iyo sano bay qaadataa wuxuu intaa rajaynayaa maalin uun baan midhahan guran doonaa in dabayla la tegi doonaan inay guban doonto in bahala ay cuni doonaan ma oga haddana saasoo tahay beertii maalin walba wuu waraabin wuu ka shaqayn nafteennu taa waxba kama duwana haddaynu qur'aanka u fiirsano allah subxaanahu wa tacaala suuratu alxadiid alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum aayadda ku xigta wuxuu ilahi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iclamuu ana allaha yuxyi alarda bacda mawtiha markii laga soo hadlay waqtigii qofku uu isbedeli lahaa inuu joogo waqtigii qalbigiisa uu khushuuci lahaa ilaa qalbiba aayadda ka horeysa ay ka hadlaysaa tan ku xigta ilaahi subxaanahu wa tacaala muxuu ina leeyahay iclamuu ana allaha yuxyi alarda bacda mawtiha dhulku marka uu dhinto kadib ilaahay baa nooleeya dhulka iyo qalbigii ayaa la isku shabihi marka dhulku marka uu qallalo abaara ay dhacaan haddana allah subxaanahu wa tacaala marka uu roob di'iyo dhulkii waa qoya geedihii cagaarkiiba haddana dib ugu soo laabtaan inta xuska ilaahay uu kugu yiri yahay inta aad habeen iyo maalinba wuxuu ilaahay nacay aadan ka gabbanayn noloshaadu qas kama dhammaanayso waxaana xaqiiqo kuu huba noloshu iyadaa kula xisaabtami doonta
haddaadan adigu naftaada xisaabin. midda labaad ee kugu kaalmaynaysa qalbigaaga in aad ka goyso waxa noloshaada u daran waa in xiriirka shaygaa aad la leedahay aad yarayso, hadduu dad yahay iyo haddii social media uu yahay iyo haddii wax kaleba uu yahay. inta xiriirkaasu uu jiro oo xiriirkaasu intuu doonaba ha la ekaaday uu taagan yahay, way adag tahay shaygaa qalbigaaga inaad ka goyso. tusaale ahaan qof baad rabtaa qalbigaaga inaad ka saarto. sida ugu sahlan eed uga saari kartaa waa in qofkaa fariimihiisa aad iska masaxdo. wax kastoo qofkaa ku soo xusuusin kara, hadda social media asxaab ku haydeen inaad iska baloogto. waayo mar kasta oo qofkaas uu kula soo xiriiro ama uu kugu soo noqdo ama innaba xataa sawirkiisu uu kaa soo horbaxo, way adag tahay boogta kugu taallaa inay bogsato. nabarkan kugu yaallo qofku mar walba damqin, xusuus horay naftu dib kuugu celin. taasaa waxay keeni dhaawicii kugu yaallay ama sababtii keentay markii horeba naftaadu ee ay dhibsatay shaygan u dooratay inay uga go'do inaysan kuu shaqayn. haddaa rabto marka taasu inay kuu shaqayso, shayga iyo adiga xiriirka idinka dhexeeya ha yaraado. 100% waxaan kugula talin lahaa shaygaa inaad jarto. midda saddexaad waxay tahay xuska Ilaahay badi. qof kastoo ina ka mida uma malaynaya inay ina ku adag tahay in qofku uu yiraahdo subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliyi alcadiim. inaad Ilaahay mar walba afka ku hayso. adoo socdaad xusi kartaa, adoo gurigaaga hagaagsanayaad xusi kartaa, adoo bas saaran baad xusi kartaa, adoo baabuurkaaga wataad xusi kartaa, iyo meelo fara badan oo kale. waa in marka adigu naf ahaantaada waagu markuu kuu bariyo aysan saacadaheeda ugu horreeya kaa qasmin. ma garanayo dhibaato ka weyn oo qofku subaxii uu la kulmo oon ka ahayn telefoonkiisa. waagu markuu bariyo inaad telefoonkan soo qaadood hore ka fiiriso social media, waxa la soo dhigay, dadku waxay yiraahdeen. dhaawaca ugu horreeya ee maalintaada wuxuu ka bilowdaa telefoonkaagaas. ka waran caaggaa yar ee jeebkaaga ku jira adigu soo gadatay haddii aad adoon u tahay. telefoonka malihiyaan la taaban, marka saacaddu ay qayliso demi keliya, intaa taabashadu ha noqoto. laakiin gabaraad la socoto, wiilaad la socoto, qofaad saaxiiba tihiin, dadka social media, aniga nafahanteeda kula hadlaya ee dadka social media maanta wax ku soo gudbiya ah. waagu markuu ii bariyo, wallaahi alcadiim, waqtigan hadda aan videogan duubayo, telefoonkaygan waqtigan soo kacay ilaa hadda waqti dheer baa u dhaxeeya. telefoonkayga ma furin, meel kaliya social media ka mida ma aanan taaban. sababtu maxay tahay? waayo waxaan arkay dhibaatada ay ugu tahay. markaad fariin furto, tanaad ka jawaabi, haddana tu kale, haddana notification baa soo dhici. sidaad u socotaa waxaad arkaysaa maalintu iyadoo kuu dhamaatay waxaad qabatana aadan aqoon. waqti badan oo maalintaadii ka midana aad gelisay social media iyo hebel muxuu soo dhigay, heblaaya maxay tiri. dantaydu marka maxay ku jirtaa oo ii muuqata oo ii cad oon qofnaba iga leexin karin, mawd ma ahane, inaanan telefoonkayga subaxii furin. maalintii markaan danahayga dhammeeyo, waqtiga dadku ay madadaalada galaan baan furay kii walaalkay oo wixii soo qoray markaasaan u jawaabi, intii aan dee awood markaa u leeyahay. haddaanan awood u lahayn, maalinta dambe ayaan dib u dhigay. haddaba dhaawaca ugu horreeya ee qofka subaxii soo gaaray ee maalinimadiisa ka qasay, ilaan maalinimadaas siday ku bilaabataa laga gartaa siday ku dhammaan doonto. midda kale iyaduna muhiimka ah sida weyn kuu kaalmaynaysaa waxay tahay isku halaynta bini'aadamka yare. awooddan ilaahay uu ku siiyey, ilaahay ka sokow, macnaha adduunkan awooddan ilaahay uu ku siiyey kalsooni buuxda ku qab. tallaabada ugu horreysa adigu qaad. qof bini'aadam ha ka sugin inuu kugu dhiirigeliyo, kugu riixo. waa meesha kalsoonida ku dhisantay. ilaan kalsoonida qofka laguma garto inuu xoolo haysto, dhar qurux badan xiran yahay, baabuur qurux badan ku socdo, meelaha dadka istustuso. taa kalsooni lama yirahdo, amaad qaylo dheer tahay iyo wixii lamida. kalsoonidu way aamusan tahay, wayna afgaaban tahay. marka aad rabto in aad wax samayso, ilaahay taladaadoo dhammaystiran u dhiibo. awooddaada inta aad leedahayna ku soco. qalbigaagana dadaal fara badan ku bixi. inta badan waxaa sahlan qofku marka uu rabo in uu isbeddel la yimaado, marka ugu horreysaba in uu qalbigiisa iyo naftiisa u dhiibo dhiirigelinta bini'aadamka ama aaraa'dooda ama hadalladooda iyo wixii la mid ah. kelmad kastoo qof uu ku yiraahdo isbeddel kuguma samayn karto haddaadan adigu si dhaba u rabin. qalbigan ilaahayba iska leh, isagaana maamula. u dhiib isaga. fa idaa cazamta fatawakkal cala allah. qalbigan rabbigii lahaa u celi, u dhiib. waana tan rasuulku sala allahu calayhi wasalam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahayd yaa muqalliba alquluub thabbit qalbii calaa diinik. macnaa qalbigu waa isrogrogaa, marba meel buu joogaa.
maanta go'aan buu qaadan haddana berri go'aankaas lama qurxoona maanta waa faraxsan yahay haddana berri waa ooyi qalbigu waa rogrogmadaa qalbigan ilaahay u dhiib oo addoon qalbigiisu uu rabbi ku xiran yahay marka aad noqoto awood baa qalbigaagu helaya una fiirsa Allah subxaanahu wa tacaala istighfaarta qofku marka uu badsado waxa qur'aankaynu ka dhexelaynaa ma raba inaan idinku dheeray laakiin qur'aanka waxaynu ka dhexelaynaa in xataa awooddaada jir ahaaneed waxyaabaha kordhin kara ay istighfaartu ka mid tahay way adag tahay qof taladiisa ilaahay si dhaba ugu dhiibay kalsooni buuxdana ku qaba inuu guul daraysto tallaabada ugu dambaysa ee muhiimka ah waxay tahay salaadahaaga waqtigooda ku ilaali hadday salaaduhu kaa dayacan yihiin noloshaaduna way dayacan tahay man a'rada an dhikri fa inna lahu maciishatan danka kitaabka ilaahay xiriir la yeelo inta qalbigaagu uu ilaahay ku xiran yahay noloshu way ku hagaagi haddii kale in badan oo dadka ka mid ah sida ay ku sugan yihiin mushkiladaha iyo qalalaasaha nolosha ka haysta waa sidii xabad masaga ahoo ku dhex jirta kal iyo mooye dhexdood oo kashu markay kor aado soo noqodkeedu inuu kii burburin lahaa uu yahay in kale aan kala ogeyn maalin walba cabsi iyo walwal iyo muruga nolosha tan la kaca markaad si dhab ah qof iimaanka uu sheeganaya ka run sheegaya aad noqoto ilaaliso wuxuu ilaahay kuu diray inaad ilaaliso bay noloshu ku hagaagi marar badan waad maqasheen aayadan la in shakartum la aziidannakum sax aayadan marar badan dadku waxay moodaan alxamdulilah kaliya inaad tiraad inay kugu filan tahay laakiin waxa ilaahay kuu diray marka aad samayso xubnahani markay ilaahay adeecaan bay si dhab ah uga mahadnaqeen wixii rabbi uu u galay wanaag ahaa laakiin xubnahani haddaysan ilaahay caabudayn maantana alxamdulilah waad iska oran kartaa waxaan laga yaabaa mararka qaar inaad tiraahdo oo alxamdulilah waan leeyahay maxaysan noloshu igu hagaagsanayn la in shakartum la aziidannakum baa layidhi aawe ma hayo xubnahaagan baa u baahan inay dhaqaaqaan xubnahan ilaahay wuxuu kuu siiyey inaad ku caabuddo adduunkan intaad joogto dhibaatooyin iyo mushkilada way jirayaan laakiin ilaahay wuxuu ku siin awooddii aad kaga gudbi lahayd awooddii aad mushkiladda xalkeeda ku keeni lahayd mar walba waa lagu hagaajin waa lagu toosin laakiin marka xubnahani aysan ilaahay caabudayn ma aysan mahadin xubnahaagu ama adiga naftaadu rabbigii ku abuurtay maadan mahadin ma haddii dhabtayda lagaa rabay baadan weli fahmin waana sababta dad fara badan noloshooda ay isu bedeli laadahay haddaba dhammaantiin intaynu muuqaalka ku xiga hadday naftayda yari gaartaynu dib ugu kulmeen waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu